السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور حسن والله مقلعات في فصيح وسؤال. هذه أكتر. اوكي. دكاترة هذا هم سنتين دكتور حسن. iyo tiimka dhammaan nala qayb galayo presenteradii hore. Si kooban waxaan uga hadli doonaa DBT, Praxis in Orthopedics. Objectiveska aan cover garayn doono waxaa ugu muhiimsan preoperative risk assessment iyo risk ugu jira. Kadib waxaan ka hadli doonaa qaybaha kala duwan iyo meelaha kala duwan ee faktarada iyo objectiveka saddexaad aan cover garayn doono wuxuu noqon doonaa prophylactic strategieska methodska kala duwan ee la isticmaalo iyo doodaha ka taagan waxyaabaha hadda la sameeyo, sida daawadee la qaadanaa, meeqa beriyaa la siinaa iyo su-aalo badan oo ku xeeran. marka sidii hore loo sheegabo, DVT iyo in general venous thromboembolism waxay ka mid tahay complicationada ugu badan ee ku dhaca bukaanada inpatientiga, ha ahaadaan bukaanada medicalka ama ha ahaadaan bukaanada surgicalka. inkastoo bukaanada surgicalka ay aada ugu badan yihiin, haddana haddii lasii fiiriyo bukaanada general surgery iyo bukaanada orthopediga waxaa aada usii badan bukaanada orthopediga. DVT sababta ugu weyn ee loola dagaalamayo ee looga hortagayona waxay tahay, waxay horseedi kartaa fatal pulmonary embolism. dhibaatadaasna haddii DVT laga hortago pulmonary embolism waa laga hortegi karaa, dhimashadii bukaankana waa laga hortegi karaa. haddii marka aanan laga hortegin oo bukaankii risk assessment aanan loo sameynin, daawana ama mechanical prophylaxis aanan loo sameynin, halista bukaankan inay DVT uu dhacdo tusaale ahaan bukaanada medicalka ama bukaanada general surgeryga average waa 10 to 40%, halka bukaanada major orthopedic procedurada sida hip fracture, total hip, total knee iyo qaliimada lamidka galayo riskigooda ay laba laab taas tahay 40 to 60% ay tahay. meeshaas waxaan ka arki karnaa bukaanada haddaanan wax prophylaxis loo sameynin, riskiga DVT incidencegeeda inuu aada u badan yahay. haddii laakiin bukaankii prophylaxis loo sameeyo, riskigii inuu aada u yaraanayo, weli wuu jiraa oo waa 1 to 10%, laakiin marka loo fiiriyo 40 to 60% aada ayuu u yaraaday. waayaan uga hortegaynaa, waayaan isu welwelinaynaa DVT, why prophylaxis? waxa ugu muhiimsan waxay tahay si studygan journalkan circulationka online lagu sameeyey, waxay tahay in haddii aanan DVT-ga la hortegin ay thromboskaas embolization sameyn karto, horseedi kartana pulmonary embolism. sidaa daraadeed muhiimadda ugu weyn ee looga hortagaa waxay tahay without prophylaxis incidencigi inuu kordhayo 40 to 60% uu gaarayo, dhimashada bukaankii DVT-ga ay ku dhacday within one month uu u dhinto complicationadii DVT-ga waa 6%, kadibna bukaankii BE from DVT ka timid ay asigana uu u dhinto, halistaas ayadana waa 12%. again bukaankii xitaa badbaaday in ay recurrent DVT ku dhacdo within 10 years, riskigeeda waa nearly 40%. marka bukaankii ayada uu dhimanaa, haddii uusan dhimanin uu ka badbaado, halis wuxuu ugu jiraa recurrent DVT ama complication kaleeto sidii qaarkood la sheegay thrombotic syndrome wixii loo yaqaano oo kale. si dhammaan waxyaabahaas marka looga fogaado waa in prophylaxis aan sameynaa. sidii dhakhaatiirtii ugu horreeyay ay sheegeen, waxaa jiro risk assessment tools, waxyaabo badan la isticmaalaa sida kuwa American College of Just Physicians iyo kuwa kaleeto. dhammaan risk stratification toolskan waxay ka siman yihiin certain risk factors oo la ogaaday in ay badinayaan incidencega bukaanka uu DVT ku qaadi karo. kuwooda ugu muhiimsan waxay tahay haddii aan sawirka geeska fiirino, major fracturada sida lower extremity trauma, ha noqdaan bilateral femur fracture, ha noqdaan tibia fracture, pelvic fracture, ama thoracolumbar iyo spinal cord injuries. bukaanada noocaasa maadaama ay risk ugu jiraan immobilization iyo virtual strike Dr. Isxaaq uu ka hadlay, complication ka imaan karta surgeryga, immobilizationka iyo coagulopathy-ga, waa bukaanada ugu badan. sidoo kale waxaa halis ugu jira bukaanada elderliga ee da-dooda ay 60 ama 75 sano ka weyn tahay. marka in general risk stratification marka la sameynayo, any patient
oo risk factorieskiisa marka la isku daro ay ka badan tahay 5 risk maxaa la assessment profilekiisa uu 5 ka badan yahay wuxuu u nugul yahay 3 laab inay DVT ku dhacdo marka loo fiiriyo bukaanada RAB score-kooda uu 5 ka yar yahay age-ka factor waaye comorbidities kaleeto bukaanka sida cancer inuu leeyahay sida inuu major procedure dhawaanahan uu maray inuu previous DVT uu leeyahay iyo waxyaabo lamid ah ayaga nafsadooda waa risk factors laakiin maadaama qaybta orthopedic aan ka hadlayo remember bukaanadan ugu badan waa bukaanada lower extremity fracture la qabo kuwa pelviska qabo kuwa spinal cord injury qabo iyo kuwa elderly remember waa kuwii hip fracture total hip major orthopedic procedure loo sameeyay haddii aan ka hadlo marka sidee looga hortagaa orthopedic maxaa la isticmaalaa 3 siyaabo badan la isticmaalaa labada ugu badan waa mechanical pharmacological mid saddexaadna waa arki doonaa waa interventional oo vena cava filter la isticmaalaa I'm not sure in Somalia la sameeyo laakiin one of the methods of DVT prophylaxis loo sameeyo waa especially bukaanada contraindication ku ah maxaa la anticoagulant mechanical prophylaxis waxyaabaha ugu badan ee la sameeyo waxa ugu muhiimsan waa early mobilization bukaankii in get out of the bed as early as possible see at least venous returnkii maxaa la dhahaa iyo venous stasiskii looga hortago venous returnkiina dhaqso ugu dhaco waxyaabaha kale oo loo sameyn karo waxaa ka jira in sigsaamihii maxaa la dhahaa compressionka sameynaya ee elastic ah loo geliyo in devices ay kamid yihiin pneumatic compression device bukaankii loo xiro ama any other method sida foot pumps waxyaabo suba pharmacological treatment way badan yihiin gadaal dambe ka faahfaahin doonaa laakiin daawooyinka ugu badan ee la isticmaalo aspirin oo ah midka ugu caansan ugu fudud meel walba yaallo hepariniska noocyadooda kala duwan vitamin K antagonist warfarinka daawooyinkan ay kamid yihiin factor 10 inhibitorska sida rifaxibanka iyo new generationskan daawooyinkan loo yaqaano doarka ama vena cava filter kuma daahi doono wuxuu kamid yahay one of the prophylactic methods of DVT looga hortago most of the time indicationada ugu caansan waxay tahay bukaan contraindication ku ah anticoagulant ama maxaa la dhahaa complication ku develop garay anticoagulant nafsadeeda aan la siin karin mechanical prophylaxis haddii aan fiirino waxyaabo badan aan ka sheegna laakiin kuwa ugu caansan ugu fudud every patient uu sameyn karo lana ogaaday in ay reduction ku sameynayaan incidency-ga DVT waa mobilization sidaa daraadeed no matter inaad daawo isticmaalaysid iyo inaad other methods of mechanical prophylaxis ay isticmaalaysid waxaa muhiim ah in bukaanka early mobilization loo sameeyo taas marka bukaan gooni ah oo la dhahayo bukaankan anticoagulant lagu qaadanayo uma baahna sariirta iska saarnaa karaa ma jirto sidaa daraadeed marka early mobilization is the simplest and most applicable method oo DVT iyo venous thromboembolism loo hortegi karo pneumatic compression devices kaas aniga tii Soomaaliya ma isticmaalo maybe teamkan Erdogan Hospital inay isticmaalaan laakiin ayaga nafsadooda waxay kamid yihiin mechanical prophylactic toolska ayagana waxay ka qayb qaadanayaan venous returnki inuu socdo maxaa la dhahaa fibrinolytic activity-ga oo maxaa la dhahaa in ay dhiiggii thrombus ku samaysmin compressionkaas intermittent-ga ah waxay fududeynaysaa soo noqodkii dhiigga pneumatic compression device-ka midda ugu muhiimsan waxay tahay mechanical prophylaxis keligeed ha noqoto early mobilization compression stockinette pneumatic compression device ama any other tool keligeed ma ku filan tahay inay DVT ka hortagto jawaabtu waa maya sidaa daraadeed combination of mechanical prophylaxis and pharmacological prophylaxis waa mid ugu fiican inkastoo ay ku xiran tahay bukaanka waxa loo sameynayo riski stratificationkii bukaanka loo sameeyey pharmacological prophylaxis marka laga hadlayo waxaa meesha imaanaysa dood ah daawooyinkan risk waxay leeyihiin bleeding haddii aanan daawadii la siinin risk waxay jirto oo bukaankii inuu ku develop gareeyo thrombuskaasna ay samayso embolization oo pulmonary embolism iyo wax lamid ay noqoto marka daawooyinkan marka la asas gareynayo la kala dooranayo we need to make sure safety-ga daawada iyo efficacy-geeda si aan u doorano daawo safe ah at the same time effective ah
daawooyinka qaarkood sida dhakhaatiirtii horeysay ka hadlayeen waxay lahaayeen maxaa la dhahaa bleeding disorders, heparin induced thrombocytopenia, reversibility qaarkood ma lahayn, qaarkood antagonistigooda maxaa la lahaa ma yaalo kii lagu soo celin lahaa si loo joojiyo haddii communicationadii wax lamida dhacaan. Marka risk waxay jirto bleeding at the same time haddii bukaankii aan la anticoagulate gareyn oo prophylactic therapy aan la sameynin risk waxay jirto thrombosis. Daawooyinka ugu badan ee loo isticmaalo 4 group iyo aspirin waaye 5 group waa aspirin sida aan ognahay waa platelet inhibitors COX-1 ayuu inhibit gareeyaa. daawooyinka kale ee 4 meesha kama waxaa kamid ah warfarinki oo vitamin K dependent antagonists-ka laga soo bilaabo factor 2 factor 7 factor 9 factor 10 kulligood faktaradaas kala duwan ee common pathway iyo extrinsic pathway wada saameynaya. daawooyinka kaleeto ee common in la isticmaalo aspirinka marka laga soo tago waxa waaye hepariniska ha ahaadaan unfractional heparin ama low molecular weight heparin ha ahaadaan ama kuwa oralka ah sida enoxaparinka oo kaleeto. daawooyinkaas low molecular weightka waxay morely affect gareysaa ama ay ku shaqo leedahay factor 10A halka unfractional heparinka ay ku shaqo leedahay factor 2A. labadooda inkastoo labada 10A iyo 2A thrombinka ay saameeyaan haddana mid walba waxay favor gareysaa maxaa la dhahaa factor gooniya. daawooyinka loo yaqaano maxaa la dhahaa oral anticoagulantska newga ah sida dabigatranka iyo generationada kale ee lamidka ayagana factor 2A ayay inhibit gareeyaan. daraadeedna fibrinogenkii looma bedeli karo conversion laguma sameyn karo fibrinka. daawooyinka halaal haddaan u fiirino orthopediga daawooyinka ugu badan ee la isticmaalo waxaa kamid ah aspirinka. aspirinka wuxuu kamid yahay daawooyinkii muddada dheer loo isticmaali jiray maxaa la dhahaa venous thromboembolism prophylaxis ha noqoto orthopediga ha noqoto general surgeryga ama ha noqoto xataa bukaanada kaleeto ee cardiologyga ama cardiovascular medicineka. stadigan oo kamid ah stadiyadii practiceka DVT prophylaxis in orthopedic in surgery wax badan kusoo kordhisay kana mid ah stadiyo badan oo metric study la isku dhaho January 2023 sanadkaana la daabacay waxaa la isku barbardhigay daawada ugu badan ee la dhaho waa gold standard of prophylactic therapy for venous thromboembolism in orthopedics low molecular weight heparin ah. daawadaas ayaa waxaa la dhahay bal daawo kale ma loo barbardhigi karaa. inta loo barbardhiga aspirin objective study waxaa la fiirinaya sida ay low molecular weight heparin u yareynayso incidency DVT bukaanka haddii la siiyo aspirinka ma u yareyn kartaa efficacy-ga effectivenimadaas waa sidee. remember DVT in ay dhacdo marka ay dhacdo waxa kadib la fiirinaya waxay tahay DE iyo death. marka 3 bilood gudaheed bukaankii aspirin la siiyey bukaankii DVT la siiyey inuu develop gareeyo maxaa la DVT iyo subsequent pulmonary embolism. waxaa la isku barbardhigay 6,000 oo bukaana 3 bilood kadibna waxaa la ogaaday in aysan aspirin ka yareysan kana xumeen kana saameyn yareen low molecular weight heparin. conclusionka marka waxay tahay inkastoo aspirinka ay effective u tahay sida low molecular weight heparin oo ay yareysay riskigii DVT iyo riskigii death due to pulmonary embolism up to 90 days ama 3 bilood haddana marka loo fiiriyo incidency-ga oo DVT-ga iyo low molecular weight heparin iyo aspirin waxaa moodaa low molecular weight heparin groupkii la siiyey inuu incidency-gooda u yaraa. marka conclusionka study-gan waxay tahay su-aashaas fiirinaysay in aspirin oo ah daawo meel walba laga helayo orally bukaankii la sii karo outpatientiga lagu discharge gareyn karo meel walbana taala ha noqoto regionkeena ama meelaha kale ee developed countries-ka aysan ka xumeen kana liidan effectivena ay u tahay marka loo barbardhigo low molecular weight heparin oo ay ka hortagtay death due to any cause up to 3 months maxaa la qalinka bukaanada major surgery orthopediga loo sameeyo. so marka aspirin controversies badanaa ka jiray laakiin study-gan 2003 soo baxday waxay caddeysay in aspirin ay tahay daawo effective ah. daawada labaad oo kamid ah daawooyinka ugu caansan ee loo isticmaalo maxaa la DVT prophylaxis in orthopedic surgery
ururada badanaa orthopediga sida ka Mareykanka, American Academy of Orthopedic Surgery, American College of Just Physician iyo NICE guidelineska iyo kuwa Scottishka xataa ee sign loo yaqaano dhammaantood waxay isku raacsan yihiin in low molecular weight heparin ay tahay daawooyinka ugu fiican ee DVT ama VTE prophylaxis loo isticmaalo bukaanada major orthopedic procedurada gaar ha noqdaan total hip, total knee ama bukaanada hip fracturada qabo. sidaa daraadeed marka low molecular weight heparin waxaa loo tixgeliyaa inay tahay gold standard of diagnosis. waxaan arki doonaa hadayt waxaan aspirin was not inferior to low molecular weight heparin, hadda laakiin ururadan waxay isku raacsan yihiin inkastoo aspirin saas ay tahay haddana still gold standard waxaa waa low molecular weight heparin. daawooyin kale ee aadka loo isticmaalo orthopedic waxaa kamid ah anfraction heparin. all guidelineski hadda aan sheegnay oo badankooda ay tixraac u tahay midda American College of Just Physician waxay isku raacsan yihiin in anfraction heparinka inkastoo ay leedahay risk badan oo hemorrhagiga sida heparin induced thrombocytopenia ay weli tahay daawooyinka loo isticmaali karo effective-kana ah safe-na ah yareynayana incidence-ga DVT-ga iyo VTE-ga. cilada ay leedahay anfraction heparinka waxay tahay due to inay monitoring u baahan tahay in bukaanka uu marka loo barbardhigo aspirinka low molecular weight heparinka iyo daawooyinka kaleeto ay tahay kamid tahay kuwa ugu badan ee lala xiriiriyo waxaa la lahaa complicationada bleedingka. sidaa daraadeed marar badan ayada lama isticmaalo due to complicationadaas laga cabsanayo. waxay leedahay laakiin antidote oo protamine sulfate. daawooyin kaleeto ee oralka iyo DVT prophylaxiska loo isticmaalo waxaa kamid ah maxaa la daawooyinkan thrombinka inhibit ama factor 10A inhibit garay rifloxaban kamid ah daawooyinka yaalo maxaa la dhahaa wadankeena kamid tahay enoxaparin, rifloxaban, dabigatran, heparinka labadeeda nooc iyo aspirinka daawooyinka ugu badan ee hadda wadanka aan ku arkay kamid yihiin. guidelineska oo American College of Just Physician iyo kuwa kale ee ayaga kasoo qaad sida AOS-ka, SIGN-ka, NICE-ka way dhahayaan dhammaantood rifloxaban DVT prophylaxis in major orthopedic procedurada waa loo isticmaalaa laakiin ma cadda procedurada qaarkood ayaga badanaa waxay xooga saareen arthroplastiga. dabigatran oo kamid ah daawooyinkan oral anticoagulantska oo especially directly inhibit gareeyo thrombinka ayagana waa loo isticmaalaa oo guidelines badankooda way isku raacsan yihiin in total hip, total knee, laakiin weli studies-ka ilaa hadda banaanka yaalla ma cadeynin ama study cad oo sheegaysa ma jirto indicationada iyo sida ay effective u tahay daawooyinka new oral anticoagulantska in DVT prophylaxis loo isticmaalo hip fracture surgery. marka waxaan sheegnay daawooyin kala duwan oo ilaa 5 group oo aspirinta ay ugu horeyso warfarinta ku xigto daawooyinkan kale ee hepariniska la isku dhaho kuwan factor 10A inhibitorska iyo daawooyinka new oral direct oral anticoagulantska loo yaqaano. marka ay fiirisid orthopediga maxaa la dhahaa guidelineska iyo ururada kala duwan ha ahaadaan kuwa European-ka ha ahaadaan kuwa Mareykanka ha ahaadaan kuwa Just Physicianska European-ka iyo American-ka intaba waxaa la isku raacsan yahay any patient oo sidii risk assessment profile-ka aan ku aragnay riskigiisa ay tahay moderate to high inuu u baahan yahay prophylaxis. bukaanada kaleeto ee miligana ay at least u baahan yihiin mechanical prophylaxis. marka prophylaxis no matter mechanical ha ahaato ama ha ahaato maxaa la dhahaa daawo oo pharmacological prophylaxis ha ahaato in loo baahan yahay si looga hortago DVT iyo subsequent pulmonary embolism waa la isku raacsan yahay. waxaa muhiima oo dhammaan ururadani guidelineskooda ay ayidayaan no matter pharmacological prophylaxis ha loo sameeyo mase aan loo sameynin muhiimadda ay leedahay early mobilization bukaanka in xilli hore sariirta laga dejiyo la socodsiiyo ayay tilmaamaysaa. sidoo kaleeto waxay ururadan isku raacsan yihiin in combination oo mechanical iyo pharmacological prophylaxis ay ka fiican tahay pharmacological prophylaxis kaliya bukaanada risk assessment profile-kooda uu 5 iyo ka badan uu yahay sida aan kusoo aragnay. dooda meelaha ay ka taagantaha waxa ay tahay bukaankee daawo la siinaa. tusaale bukaan ankle fracture ah iyo bukaan femoral fracture ah yaa risk badan, bukaan knee fracture ah iyo bukaan hip fracture yaa risk badan. in general study waxay sheegayaan in bukaanada
ankle fracture-ka, leg fracture-ka, knee fracture-ka, femoral fracture, hip fracture, pelvic, spine. The higher you go from the foot to the proximal part oo dhanka headka ah ilaa iyo spineka ay ka gaaraysid riskiga inuu sii badanayo. Tusaale ahaan bukaanada oo leg fracturada iyo maxaa la dhahaa below knee riskiga DVT-wooda waxaa la dhahaa up to 3%. halka bukaanada above knee ah riskigooda DVT iyo developmentiga subsequent pulmonary embolism uu gaari karo up to 3 to 7 to 10%. marka meelaha ay dooda ka taagantaa waxay tahay ayaa la siinaa. waxaa la isku raacsan yahay marka in any patient or risk assessment profilekiisii uu gaarayo moderate to high ugu baahan yahay prophylaxis inuu sameeyo. Remember, lower extremity surgery, no matter ankle inuu ahaado, inuu leg ahaado, inuu knee ahaado, inuu femur ahaado, inuu pelvis ama acetabulum ama intertrochanteric iyo meelo lamida uu ahaado, dhammaantood lower extremity surgery way u baahan yihiin in la siiyo kan. Again, not only lower extremity surgery, age-ka bukaanka muhiima. waxaa laga yaabaa bukaan elderly ah, obese ah, proximal humor ka jaban oo upper extremity ah. Then risk assessment markaad u sameysid age-ka keliya ilaa haduu koron yahay fracture-ka iyo mobilization-ka, obesity-ga, maybe associated comorbidities uu leeyahay sida cardiovascular ama respiratory issues-ka inay riskigiisa again RAB score-kiisa uu 5 gaaro. marka who should receive waxay ku xiran tahay risk assessment profile. When should they receive? goorma daawada la siinaa? dood waxay ka taagan tahay meelaha kaleeto weli cilmi baarisada ay ka socdaan. waxaa kamid ah bukaankan haddii loo sameynayo qaliin uuna u baahan yahay DVT prophylaxis pharmacological goorma daawada la siinaa. marka European guidelines-ka iyo North American guidelines-ka waxyaabaha ay almost ay isku raacsan yihiin waxaa kamid ah bukaankan ama 8 saac ka hor qaliinka u bilaabo prophylaxis-ka ama 12 saac ka hor u bilaabo prophylaxis-ka ama qaliinka kadib u bilaabo maxaa la dhahaa 6 saac ama 8 saac kadib prophylaxis u bilaabo. again waxay ku xiran tahay riskiga bukaanka hadduu high risk yahay waxaa la prefer garayaa daawooyinka ay isticmaalaysidna aysan badinaynin halista bleedingka iyo post operative oozingkii surgical site-ka pre-op 12 hours ee badanaa guidelines ka dhahayaan. post op bukaanka riskigiisa haddii aysan badnayna waxaa la recommend garayaa in post op 12 hours 8 hours intuu dhexeyso loo bilaabo. su-aasha kale waxay tahay marka what form of drug daawadee loo bilaabo? most of the time daawooyinka la siiyo bukaanadan haddiiba high risk patients ay yihiin oo RAB score-kooda 5 iyo wax lamida uu yahay daawada ugu badan ee la isticmaalo waa low molecular weight heparin. low molecular weight heparin waxay ku xiran tahay again bukaankii contraindication amuu leeyahay maya. daawada ugu badan ee loo isticmaalo orthopedic sida aan kusoo aragnay gold standard of therapy inay tahay ayada waay. again bukaankaas intuu isbitaalka joogo 3 beri 4 beri 5 beri low molecular weight heparin uu qaadan doonaa. then marka uu baxo waxaa lagu bedelaa either daawooyin kaleeto oral ah ama aspirin. durationka daawadan meeqa beri bukaanka qaadana? most of the time bukaanada arthroplasty-ga waxaa la recommend garayaa ugu yaraan 14 beri ama bukaanada qaarkoodna waxaa la recommend garayaa ilaa iyo 35 beri. marka waxay ku xiran tahay riskiga bukaanka. weli ma jiro clear cut off point oo la dhahayo bukaankan 14 oo qaadana bukaankan 14 oo qaadana. marka patient specific factorska weli aanan cadeynay kamid tahay laakiin most of the guidelines waxay dhahayaan 14 days minimum to 35 days maximum ayaa la recommend garayaa. hadduu laakiin bukaankan uu yahay bukaan current DVT looga cabsanayo high risk waxaa laga yaabaa up to 6 weeks in la wado daawada. marka meelaha controversy uu ka jiro ama doodaha ka jira ay kamid tahay meelahaas. aniga ka sayid ahaan iyo staff gacanta jiro oo aan ka shaqeeyo oo aan ka sameeyo maxaan sameeyaa? most of the time bukaanada markay noo imaadaan waxaan leenahay greenfield form maxaa lahaa risk assessment toolkii uu lahaa noo yaalo. naasiga marka bukaanka noocaas ee jaban femarka ka jabnaado oo intermedullary needing loo qorsheeyo ama ka jabnaado forearmka ama meel kale 40 sano ka yaraado ama 60 sano ka weynaado bukaankaas waxay u sameynayaan naasiga risk assessment tool. risk assessment ama risk stratification markay u sameeyaan bukaankii wuxuu noqonaa early bukaan low risk moderate risk
high risk ama bukaan highest risk noocuu raba ha ahaado bukaankaas markasta waxaan ku dadaalnaa in bukaankan qalliinka kadib early mobilization loo sameeyo. So low risk ahaw ama high risk ahaw, if the patient can be mobilized immediately after the surgery, waxaan ku dadaalnaa early ambulation, early walking, sariirta inuu dhaqso kasoo dego maxaa la dhahaa si at least maxaa la dhahaa u caawiso. Then bukaanada moderate to high risk waxaan isugu darnaa annaga ma isticmaalno intermittent pneumatic compression device ama venous pumps waxyaaba lamida. daawada ugu horeyso aan isticmaalo bukaankaan moderate to high risk ugu dhexeeya, especially moderate risk haduu yahay maxaa la dhahaa aspirin. bukaankaan laakiin haddii uu yahay bukaan high risk waxaan ka wadaa bukaanadii either galay maxaa la hip fracture, bukaanada interventriga, bukaanada bilateral femur, bukaanada polytraumada, bukaanada procedure-kooda ugu dheeraa, bukaanada maxaa la dhahaa intaysan istaalka imaanin hore immobilization muddo usoo ahaa. bukaanadaas waxaan ku bilaabnaa low molecular weight heparin, kadibna after discharge aspirin ala siiya. durationka badanaa aan sameeyo waxay tahay wasawirkan bukaanada markay baxaan aspirin 75 miligram ama 81 miligram ayaa waxay qaataan muddo 30 maalin ah. go'aanadaas iyo practice-kaas aan sameeyana waxaan ku saleeyay study hadda aan idiin sheegayay New England Journal of Medicine lagu daabacay January 2023, taas oo gabagabadii conclusion-keedu uu ahaa in aspirin uusan ka xumeyn in terms of efficacy-ga daawada ugu caansan ee low molecular weight heparin la dhaxay. gabagabadii waxaan kusoo khatimaa venous thromboembolism ha ahaatee DVT ama consequence-geeda oo ah pulmonary embolism waa preventable cause oo sababto ama loo aaneeyo inay kamid tahay ama la dhaho waa sheyga saddexaad ugu badan ee isbitaalada bukaanada inpatientiga ee u dhintaan. bukaanadan haddii risk assessment loo sameeyo, risk assessmentiga markii loo sameynayo loo manage gareeyo according to their risk stratification, dhimashadaas waa laga hortegi karaa. bukaankiina maxaa la dhahaa quality of life-kiisii iyo communicationadii wajihi lahaa early ayaa la detect garay karaa ama la xallin karaa. Remember, mechanical, pharmacological iyo interventional prophylaxis ka jiro midka ugu simbalsan every patient inuu ugu baahan yahay applicable-na ku ah waa early mobilization. sidaa daraadeed no matter bukaankan nooca uu yahay waa muhiim in bukaanada lagu dhiirigeliyo inay sariirta kasoo degaan, early walking sameeyaan, dhaqdhaqaaqaan. taasna wax badan ayay saacidaysaa sidii studyada ay sheegeen 40 to 60% ayay riskiga iyo incidensiga DVT-ga yareynaysaa. ugu dambeyn daawooyin badan ayaa jira, daawooyinkaasna tee la isticmaalaa meelaha dooda ay ka taagan tahay ayay kamid tahay, laakiin ogow aspirin raqiis ah Soomaaliya taalo meel walba laga helayo, bukaanka oral uu qaadan karo, complication badan in terms of bleeding ay kamid tahay iyo maxaa la dhahaa maxaa la dhahaa heparin induced thrombocytopenia communicationadii hemorrhagiga ee heparinada iyo daawooyin kaleeto ee aanan lahayn antibiyootyada looga cabsanayo ma lahan. sidaa daraadeed waa daawo aada loo isticmaali karo. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. asalaamu calaykum.